dawladdu ma jiri karto haddaan maanta Telesom jirin waxaad ka soo eegtaa dhalinyarada waxbartay iyo jaamacadaha iyo adeegsiga fiiga hadday noqoto bugaag iyo hadday noqoto dukaamo marka waxa weeyaan dhaqaalihii oo dhan qayb ka mid ah ayay suurto gelisay waxay la mid tahay shirkadda Telesom kambanigan la yiraahdo Microsoft ee soo sameeyay qalabkan technology wax lagu adeegsado computerka u baahan yahay haddaan maanta Microsoft jirin adduunka dhaqaalihiisu istaagi lahaa Telesomna maanta waxa ka dhigan tahay haddaan Soomaaliland ka jirin dadka maciishadooduna way gooy lahayd waxna lagama kala iibsadeen ardayduna suuq ma tagtay mushaharada ciidamadana lama heleen marka waa laf dhabar dawladeed bay maanta Telesom ku sii socotaa kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha mudan ee hawada nagala socdo daawadayaal ku soo dhawaada waraysi aanu maanta la yeelano mudane Mustafa Martin oo aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku nool wadanka Mareykanka Mustafa Martin oo runtii ka soo shaqeeyay bankiga lagu magacaabo Citibank oo muddo dheer uu ka shaqeynayay isla markaana takhasuskiisu uu ahaa financial marketka Mustafa waxa aanu ka wareysanaynaa arrimo badan oo khuseeya shirkadda lagu magacaabo Telesom Somaliland anagoo wax ka weydiinaynaa dadku inay fahmaan iyagoo u baahan qaabka shirkaddan ay u shaqeyso waxyaabaha ay qabato haddii la ku yahay sida ay ula dagaalantay macaluusha iyo gaajada ka hortageeda waddanka Somaliland ama qaabka lacagyogan dadku ay isu diraan faa'iidada ay leedahay ama waxyaabaha ay dadku ka faa'iidaan iyo waliba waxa kale oo aan ka wareysanaynaa guud ahaan sida ay shirkadaasi u saameysay dhaqaalaha waddanka ama sida ay uga qayb qaadatay horumarka dhaqaalaha dalka Somaliland mudane Mustafa ugu horreyn waxaan ku weydiinayaa waxaad nooga warantaa inagoo guud ahaan ka hadli doono shirkadda Telesom Somaliland oo muddo 20 sano ka badan dhisnayd waxaad anaga iyo dadka loo sharaxdaa qaabka ay u shaqeyso shirkadaasi waxay qayb ka tahay qaabkan cusub ee loo gaarsiiyay adduunka lacagaha gaar ahaan lacagtan la yiraahdo digital money ama money wire service amba lacagtan loo adeegsado wixii magaranaysa electronics ee aan ahayn lacag xaashiya marka waxay shirkadu ganacsiga ku jirta waa shirkad ganacsigeedu ka mid yahay lacagahan ku baxa qaabka electronicska ah ee digitalka ah marka ganacsigaas oo marka la qiyaaso ah Mareykanka iyo adduunka ilaa trillion marka gaadhay aad u soo caan baxay xawlina ku socda ayay qayb ka mid tahay shirkadu waayahay waxaan doonayaa inagoo kala qaadi doonaa oo shirkadu dhinaca xawaalada ay ka tahay dhinacna ay ka tahay lacagta dadku ay isu diraan dhinacna ay ka tahay telefoonkii lacagyogan ay dadku isu dirayaan transfer moneyga ah sidee saameyn ugu sameyn karaan horumarka dhaqaalaha waddan uu leeyahay haddii aad eegto dadka imika gaar ahaan Soomaalida waxa lagu qiyaasay milyan iyo bar inay dibadda ku maqan yihiin sanadkii dalkeena waxay soo gelisaa dadka Soomaalida waa ilaa 5 bilyan oo dollar 2 bilyan oo kamid waxa weeyaan waa alaab amba ha noqoto gawaadhi amba mashiino amba qalabkan dayactirka ee garanaysa guryaha 3 bilyan waxa weeyaan waa lacag kaash oo waddanka soo gasha lacagahaas oo dhami waa qayb la xidhiidha wixii la oran jiray humanitarianka amba gargaarka ummadda marka waxa weeyaan waxyaabahaas oo dhan waxa suurta gelin kara waxa weeyaan waa hay'adahan sida kambanigan Telesom oo kale uu shaqeeyo haddaad soo eegto anagu barigan halkan joognay Mareykanka waxa jiri jirtay markii aad dirto $200 waxay sii dhixi jirtay 5 habeen fiiga lagu diri jiray wuxuu ahaa $50 boqolkiiba marka boqolkiiba 50 baa lagu diri jiray maanta lacagtaas waa lacag jaban xilliga waa xilli boobsiisa waxyaabahaas oo dhan waxay qayb ka tahay caawimadii iyo gargaarkii loo fidinayay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan u baahan lacagaha noocaas ee aan noolaan karin la'aanteed marka shirkadda waxay qabatay hawl aad iyo aad u wanaagsan bay gacanta kula jirtaa imika waayahay marka la eego shirkaddu iyadoo shirkadda ugu baaxadda weyn ee Somaliland ka jirta gaar ahaan waliba dhinaca telefoonada oo muddo badanna suuqa telefoonada iyadu haysatay sidee saameyn togan ugu yeelatay arrintaasi Somaliland iyo horumarkeeda dhinaca telefoonada shirkaddu waxay ka faa'iideysatay xilligan isbedelka ah ee ah inuu dhaqaaluhu ku xidhmay technology amba alaab iibsiga adduunka oo dhan uu ku xidhmay technology marka waxay la jaan qaaday amba waxay noqotay bilowgii hore inay ka faa'iideystaan wixii la oran jiray technological innovation amba musaybkan technology-ga marka horta taas weeye ta ugu wanaagsan ay ka qayb qaadatay waxa kale oo sii dhiirigeliyay shirkadda dadka Soomaaliyeed oo dad badan u maqan yihiin oo lacaga badan diraan adduunkana ka kala diraan taa laftigeedu shirkadda ayay sii xoojisay
waxay kaloo sii xoojisay shirkadda aaminkii waddanka oo sii yaraaday xaggii la oran jiray trust waayo lacagu waxay u baahan yihiin aamin marka berigii hore trustku dee dhaqanku ku dhisnaa markii la waayo bangiyo la aamino waxaa timi fursad looga faa'iidaysta global digitalkan dee lacagahan laysu diro sida electronic ah marka fursadahaas oo dhan ayaa ka faa'iidaysatay waxaa kaloo faa'iido weyn u noqotay dee habkan degdega ah ee maanta lacagtaa dirto isla berito loo qaadanayo iyadoon dhexda cidi isu taagin amba aanay dhacaynin amba aanay cidi magaranaysaa boobaynin marka waxyaabahaas oo dhan ayaa keenay fursadaha laakiin ta ugu wanaagsan waxa weeye xilligii ayaa waxaa laga gudbayay wixii la oran jiray magaranaysaa hardcore currency amba lacagtii la qaban jiray amba duugoobi jirtay amba qaarkood dee sida soomaaliya lagu arkayba dee magaranaysaa galkuba ka dhici jiray amba dee midabkuba ka tegi jiray marka waxaasoo dhan bay ka badbaaday shirkaduhu fursadahaasoo dhanna way heleen waayahay haddaynu egno lacagta saadkee tusaale ahaan inagoo usoo noqon doona dhinaca telefoonada lacagta saadkee la isu diraya adigu carabowday dhaqaalaha kobcintiisa iyadu qayba ka qaadanaysaa mise waa arrin dhaqaalaha dhaawac u geysan digital coinskan amba waxaan dee lacagtan electronic waxay fursad siinaysaa horta waxa weye waa ninkii danyarta ahaa gaar ahaan dadkii xoolo dhaqatada ahaa amba dadkii magaranaysaa reer guuraaga ahaa iyagoo aan magaalada soo gaari karayn amba aan adeega suurto gelin karaynin amba intuu qofkaasi soo kicitamo uu soo aadi jiray magaalada ku bixi jirtay kharash iyo 5 habeenoo dambe inuu sii joogo alaabtii ka rarto ayaa waxay siinaysaa fursad aad u jaban oo ah isagoo deegaankiisii waddankiisii jooga inuu alaab ka iibsan karo magaalooyinka waaweyn waxna ka adeegsan karo lacagna ka qaadan karo lacagna u soo diri karo marka fursadahaas oo dhan ayaa horta wanaagsan oo ay ka qayb qaadatay xagga dhaqaalaha gaar ahaan dadka danyarta waxay kaloo xoojinaysaa wixii la oran jiray wholesale iyo retail amba dadkii wax soo dejinayay iyo kuwii sii tafaaruqayay intaba iyadana xoog ayay siinaysaa waxay samaynaysaa lacagahan waxay dejinaysaa hadda jeer waxa weyn dhaqaalihii isweydaarsiga ahaa kala iibsashadaha iyo aaminkii intaba marka kobcin dhaqaalo weyn ayay ku samaynaysaa wadamada soo koraya lacagaha noocan dad badan oo reer Somaliland oo waddanka jooga oo mararka qaarkood laga yaabo inay dhaliil soo jeediyaan shirkadda ayaa waxay yiraahdaan lacag ma aragno haween kala iibsanaa lacagteeni hawada maraysaa iyadoo sida aynu ognahay wadamada Yurub ee aynu ku sugannahay ama Mareykanka idinku aad joogtaanba dadku aanay lacag inta badan jeebku sideen ay isticmaalaan ama kaad bangi ama lacag la soo dirayo sida saadku kala marka fikirka noocaas oo kala dadka aaminsan aqoon ahaantaada markaad eegto adu dhaqaalaha aqoontaad u leedahay intee leeg baad maraysaa in fikirkaasi uu yahay fikir baalmarsan wixii saxda ahaa ee shirkaddu ay qabanayso orda shirkadda waa qayb siyaasadaysan oo ka jirta guud ahaan Somaliland iyo tartanka dhaqaalaha ay ku kala jiraan dadku ta kale dhabta ay jirta waxa weeyaan guud ahaan markaad eegto digital coins amba money wire service ka lacagaha noocan u baxaa fursado badanna way leeyihiin khataro badanna way leeyihiin khatarta koowaad haddaynu soo eegno waxa weeyaan wixii la oran jiray FDIC amba cashuur amba caymis difaaca ma laha shirkadaha noocani khaasatan 100,000 haddaad dhigato telesom amba dahabshiil difaac adag ma haysatid oo haddii ay kamanigaas uu kaco amba ay lacagtaas lunto dee dowlad soo gelayso intervention ku sameynayso lacagtii bixinaysaa ma jirto halkan maraykanku wuxuu ku dhisan yahay bangiga haddii uu kaco wuxuu ku jiraa dee bank kasta lacagtiisa FIDC amba waxa la yidhahdo Federal Deposit Insurance oo cashuur magaranaysaa soo celiya marka horta khatartaasi waa kow waxaa kaloo jirta dee wixii la oran jiray regulatory reform amba magaranaysaa dowladdii iyadoo central bank lahayd ee ahayd inay waddanka kayd u samayso difaac dollar oo ay kaga hortagto magaranaysaa wixii la oran jiray inflationka amba sicir bararka taa laftigeedu tartan weyn bay ku haysaa shirkaddu laakiin dee dowladnimo ma jirto Somaliland iyo Soomaaliya toona marka waxa weeye shirkaddu khatara dabiici way jiraan laakiin marka loo eego khataraha ku soo fool leh waxa ka badan had iyo jeer fursadaha imika ay gacanta shirkaddu ku hayso shirkaddu guud ahaan marka la eego waxyaabaha ay u faa'iideysay Somaliland dhinaca dhaqaalaha ku saabsan ama dadka waxqabadkooda ku saabsan maxaa laga xusi karaa baad maranaysaa aqoontaada dhaqaalaha runta haddaad eegto dowladda Somaliland waxay ku dhisantahay imika waxa weeye waa adeega telesom weeye gaar ahaan haddaad soo eegto mushaharooyinka bixintooda haddaad soo eegto akawnada u furan haddaad soo aragto magaranaysa dadku waxyaabaha ay ku kala iibsanayaan marka qayb dhan oo lafdhabara weeye imika shirkaddu khataraha haddaynu dib ugu noqono markay shirkaddu sidan u weynaato ay telesom weynaato anaga halkan waxaa nagu dhacay kambaniyo aad u kobcay oo ay ka mid tahay Microsoft marka kambanigu markuu aad u weynaado had iyo jeer waxa badanaya wixii loo jiray monopoly
inuu power weyn yeesho isagu dowladdiiba ka xoog bato iyo dadkiiba khatartaas waa kuwii hore ayay qayb ka mida tahay laakiin khatartaas qayb ka mid a ka tahay waxaan xasuustaa berigii Microsoft Bill Gates oo halkan koray waa la kala jabiyey kambanigaas dabadeed laba qaybood baa laga dhigay marka khatarahaas way badan yihiin laakiin fursadaha dowladdu ma jiri karto haddaan maanta Telesom jirin waxaad ka soo eegtaa dhalinyarada waxbartay ee jaamacadaha iyo adeegsiga fiiga hadday noqoto bugaag iyo hadday noqoto dukaamo marka waxa weeyaan dhaqaalihii oo dhan qayb ka mid ah ayay suurto gelisay waxay la mid tahay shirkadda Telesom kambanigan la yiraahdo Microsoft ee soo sameeyay qalabkan technology wax lagu adeegsado computerka u baahan yahay haddaan maanta Microsoft jirin adduunka dhaqaalihiisu istaagi lahaa Telesomna maanta waxa ka dhigan tahay haddaan Soomaaliland ka jirin dadka maciishadooduna way goy lahayd waxna lagama kala iibsadeen ardayduna suuq ma tagtay mushaharada ciidamadana lama heleen marka waa laf dhabar dawladeed bay maanta Telesom ku sii socotaa waa fursad laakiin waana khatar labada dhinac way leedahay waayahay Mustafa waxaa tiri waa fursad runtii waxaa jira dad badan oo reer Somaliland oo iyagu ka shaqeeya shirkadaha guud ahaanba marka la eego waddanka ka jira iyadoo Telesomna dadka qaar ba ay wax ku sheegaan qaar ilaa 20 kun ba ka shaqeeya qaar ilaa ka badan ba ka shaqeeya dadka reer Somaliland waddanka oo dhan marka la eego marka dhaqaalaha shirkadda intaa in leeg samaysa marka la eego wadamada caalamka oo kale shirkadda dadka intaa leego kale ka shaqeeyaan shaqo abuurka samaysay in waxyaabaha waajibka ku ah dawladda oo kale matalan inay wada qabtaan ama ay kala shaqeeyaan maxay tahay maxaa loo baahan shirkadaas oo kale loo qabto horta waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan shaqaalaha inta ka shaqeeya horta muhiim uma aha dawladda iyo dadka toona laakiin waxa muhiim ah wixii la oran jiray economical facilitation Telesom markii ay transaction samaysaba waxa faa'iidaya dad wax kala iibsanaya marka macaash baa ka dhexdhacaya marka circulationka amba wareegtadana ay granta wareejinaysa dhaqaale ee Soomaaliland haddaad qiyaasto waxaad oran kartaa Soomaaliland qiimaheeda oo dhan waa 350 milyan ayaa lagu qiyaasaa magaranaysa budgetka dawladda guud ahaan dhaqaalaha Soomaaliland waxa lagu qiyaasaa 1.5 billion dollar weeye hadduu economic si fiican u shaqeeyo amba baahida jirta marka waxa weeyaan daily maalin kasta ayay granta rogaysaa Telesom ay u rogaysaa 2 qof 3 qof bakhaarley maqaaxiley iyo gaadiid iyo gaas iyo maciishad iyo mushaaro intaba iyo waxbarasho marka lama soo koobi karo dhaqaale wadaagta wanaagsan ay ummadda ka dhexdhalisay economical contributionka ay ummadda u samaysay marka waxaas waa waxaan la xisaabin karano aad iyo aad u badan waxaase la dareemi karaa iyadoo maanta aan jirin shirkaddu markaas baa waxaa ku dhici lahaa waddanka bankruptcy iyo khataro aad weyn laakiin shirkaddu dhaqaalaheedu aad iyo aad buu u wanaagsan yahay sida wax u wadaan waayahay Mustafa su'aasha kale aan doonayna ku weydiiyo waxa weeyaan waxbarashadoo kale marka imika la eego arrimahan digitalka ah ee waxbarashada waddan Somaliland oo kale waddan yar oo dhaqaale badan aan haysan marka miyay faa'iido u leedahay in ardayda digital wax ku dhigtaan oo aanay magaranaysaa waxbarashadii saa loogu fududeeyo mise caqabad bay ku noqotay waxbarashadii oo kale su-aashaas way ka baxsan tahay tii digitalka ma waxbarasho digital aad weydiinaysaa mise waxaad weydiinaysaa waxay ka qabato waxay ka qabato guud ahaan baan sheegayaa Telesom digitalka marka wax lagu dhiganayo qaabkan oo kale Somaliland marka loo eego iyadoo caalamka oo dhan waa digital wax laga waa su'aal wanaagsan su'aashaas waxay daba socotay wixii la oran jiray kaydka amba dhitada iyada laftigooda dhitada iyo kaydka dhaqaalaha bangiyadu xeerar badan ayay iyaga leeyihiin waxyaabaha khatar ku keeni kara mustaqbalka Telesom waxa ka mid ah wixii la oran jiray dhitada inkastoo aan imika aan eegayo ay uga bedelaan xagga dhitada amba kaydka inay bangiyo u fureen taaj ku xiriirsan amba meel ku xiriirsan oo ay labada arrimood kala fogeeyeen wixii maciishada lagu kala iibsanayay iyo wixii dhitaa ee kayda inay kala saaraan aad iyo aad baan horta ugu faraxsanay baryahana waana la socday marka waana fursad wanaagsan oo kayda su-aasha haddaba meesha u taala fursadda weyn u taala Telesom waxa weeye haddii ay dowladda si fiican u wada shaqayn karaan in kaydka digitalka ay gacanta ku hayaan loo adeegsado in lagu control wixii la oran jiray inflationka amba maciishadan kor u kacaysa oo markii dollarku kor u kacaba intervention lagu sameeyo digitalkan lacagahan asalka ah ay sii furto shirkadda marka laga hortago inflationka marka kaydka laftigiisu waa aad iyo aad buu wanaagsan waana wax wanaagsan laakiin heer labaad in looga faa'iideysto la gaarsiiyo ayaa muhiima kaasina wuxuu ku imanaya iskaashiga dowladda iyo private institutionska laakiin meesha dhibka taale waxa weeye dowladda ayaa u arkaysa dadkii private-ka ahayd ma garanaysa inay yihiin dad duulaan ku ah dowladda taa laftigeedu intay soconayaana lama samayn karo interventionka noocaas waayahay
waaya anaaba doonay inaan ku weydiiyo runtii adaa carabaabay arrinta sixir bararka marka la eego dhaqaalihii somaliland marna uu kor u kaco marna hoos u dhaco iyadoo muddooyinkii dambe la sheegayay in bangiga dhexe somaliland uu xakameeyey oo sidii hore iminka ay dhaato haddana shirkaddu iyadu nafs ahaan maxay ka qayb qaadan kartaa ama ma ka qayb qaadatay in dhaqaalaha aanu sicir barar waddanka ka dhicin oo meel lagu kaantaroolo dhaqaalaha horta de waxaa jira shirkadda kuma tuhunsanay aqoontan amba heerkan sare aad u adeegsan karto magaranaysaa sidii adduunka looga difaaci lahaa magaranaysaa inflationka iyagu waxay ku baraarugeen in fursad hadda jirta oo wax kaga qabtaan marka fursaddaas waa intermediate level waa meel dhexe laakiin haddaynu heer kobcina u gudbino ee gaadha halkii laga rabay shirkaddu waxay samayn kartaa oo kale fursadaha u bannaan 3 bilyan oo dollar oo maraykanka ayaa soo gala adduunka ayaa soo gala Soomaaliya gaar ahaan 60% waxa laga yaabaa inay soo maraan shirkadaas marka eeg difaaca ugu weyn ka hortag dhaqaale inflationka shirkadu qayb libaax leh ayay ka qaadan kartaa oo ay kaga hortagi kartaa xagga maciishada shirkada lacagta soo marta waa lacag ka badan dhaqaalaha almost Soomaaliya oo dhan waxyaabahaas dhan waxay u adeegsan kartaa inay kaga hortagto magaranaysa inflationka waxay kaloo kaga hortagi kartaa oo ay ku samayn kartaa inay maalgashi u adeegsato ummadda qurbaha ku maqan iyo kuwa dibadda joogaaba oo magaranaysa ganacsiyo waaweyn la wada galo marka shirkadu wali waxay ku mashquulsan tahay amba ay deemanka gacanta ku haysan waxa weeyaan maalin walba wixii dee qaybto daruuriga ahaa laakiin markay kobcdo xagga inflationka long term investment maalgashi badan waxyaabahaas oo dhan u banaayeen shirkadda waayahay mustafa kolley waa runoo shirkado kalena waddanka way ka jiraan tartan baa jira dhinaca shirkadaha ah marka shirkaduhu iyagu miyay isku samayn karaan dacaayado in ay dad isu adeegsadaan oo kale qiyaastii oo dad shirkad ka socda ay shirkad kale si ogaana oo ula kaca ay u weeraraan oo suuqa ay saas oo kale isaga weeraraan arrintaas oo kale shirkaduhu isku samayn karaan wax sharciya sida Somaliland ma ka leedahay arrintaas horta waxaa jiray inkastoo aad gelinayso hawl ninkan dahabshiil leeyado barigii dambe saaxiibnay oo aan wacad ugu furay inaan mar dambe soo hadal qaadin oo aan jeclaynay inaan ka hadlo haddana ka maarmi mayso arrintan oo kale in laga hadlo tartanka ugu weyn horta wuxuu ka dhexeeya waa dahabshiil iyo telesom dahabshiil horta wuu qaatay kaalintiisii koowaad waagii loo baahnaa ummadda halgan buu la galay in lacag la diro oo dadka maciishad la-aan iyo fakhriga laga ilaaliyo waa ku mahadsan yihiin laakiin dahabshiil waxa weeye waa political affiliate wuxuu had iyo jeer shuraaka leeyahay xisbil xaakimka gacanta waddanka ku haya sida kulmiye iyo dowladda hadda gacanta joogta mararka qaarkoodna waxaad moodaa tartankaa siyaasadeed tartankaa privateka ee ka dhex dhacaya shirkadaha madax bannaan in ay dowladdu qolana gacanta u qabato qoladii kale marka arrintaa waxaan dhahaa ha la joojiyo dowladduna faraha ka qaato dahabshiil haddii lagu tuhunsan yahay faraha ka qaado waa in waddanku noqdo private xaraala oo tartana shirkadaha haddaba maxaa u furan shirkadaha waxa weeyaan telefoonkii hargeysa daanna mid baa laga adeegsadaa daanna mid baa laga adeegsadaa qoloba mid baa adeegsataa qolana mid baa adeegsataa qabyaaladna arrinkii kama maqna iyo siyaasadii xisbiyadana kama maqna marka horumarna ma gaari karo waddanku intuu leegyahay halka kambaniyada waaweyn aan u shaqayn jiray ama Bank of America iyo AIG they merge way isku biiraan laakiin waxay la tartamaan Europe iyo Asia ay la tartamaan bangiyada waaweyn waxaan ku dhiirin gelin lahaa anigu maanta halkan kambaniga dahabshiil iyo Telesom inay ogaadaan dadku suuqu East Africa waa 400 milyan haddii ay iskaashadaan meelaha ka wada shaqeeyaan way sii xoojin karaan lacagta waxa lagu dirana hoos bay u dhacaysaa dadkuna uu ku sii dhiiran kalaya laakiin tartankan qabaaylaysan oo hoosta ka jira haddaanu isjaagin waxa dhici karta in qolo kale kasii farcanto oo waxooduba ay maarta suuqoodu hore u kici waayo sidii qaadwalayaasha ay docokatuur isku wada noqdaan marka arrimahaasna in la joojiyo waa muhiim weeye si waddanku gargaar degdega u helo waayahay haddii aynu eegno dhinaca cabashooyinka oo kale tusaale ahaan dadka qaar baa waxay ku cabanayaan in lacagta telesom ay ku shubtaan habeenkii ay lacagtooda waayaan oo fiduciar laga goosto marka la eego dhaqaale ahaan shirkaddu waxa noocaas oo kale miyay samayn kartaa mise dadku lacagtoodii ay ku hadleen oo ayay dib u waayeen oo mar dambe laga goostay in arrintaas kale soo dhici karta horta dhaqanka Soomaalidu kuma jiro wax la yiraahdo gunno oo gunnada dhaqankeenu ma ogola ilaa berigana maxaarada la dagaalami jirnay waxa la oran jiray gibir bay naga qaadeen dhaqankeenu ma uu baran waxa la oran jiray gunnooyinka iyo fee for service iyo qofka inta loo shaqeeyo digitally waxna laga qaato imika oo kale anigu talooyin baan bixiyaa hadal baan wax ku iibiyaa dabadna hadalkaasaan lacag ka helaa way ku adagtay qof Soomaaliyeed inta ku tiraahdo intaan kula hadlo saacadii siinaysa $500 laakiin lawyerska ka mid ah dhaqaatiirta ka mid ah digitalkuna waa sidaas markii aad hadasho ee aad
lacag ku tala meesha dee waa lagu wax lagaa macaasho ayaa laga helaya macaashkaasoo dadka la wada gaadhsiiyey ayaa jebinaya qiimihii lagaaga gadi lahaa adiga telefoonka waayo dad badan oo haddaanay dad badan intaa bixin ma qaadi karto dee systemku waa marginal cost baa leedahay marginal cost waxa weye ninka beeraleydi markuu beertiisa goro dee tanaga ugu horeeya haddii loo eego lacag intuu geliyey iyo kharash intuu geliyey ka ugu qaalisan buu noqonaya laakiin tanaga kunaad wuu sii jabayaa qiimuhu kolba wuu sii jabaya marka dadkuna waa inay bartaan fiigu inuu yahay waxa kaliya serviceka qiimaheeda daryeeli karaa marka waxaad leedahay way dhici kartaa in service ahaan maadaama dadkan loo shaqaynayo sentiyo ay uga go'aan waa uga go'ayaan dee ha kambaniga waxa ku socda qalab baa ku socda waxa ku socda waxa la yidhahdo fixed cost iyo variable cost fixed cost waxa weeyaan waxa u taagan dee biraa u taagan shaqaalaa maintain garanaya magaranaysa haddaanay maalin kasta mushaahara bixin kambaniga ma sii jiri karayo marka isaguna waa inuu dee magaranaysa shaqaalihii ka bixiya dadkii markaa daily amba maalinba in yar ka dambeysa waa dee waa inay fiiga bixiyaan dadku haddii kale shaqadu socon mayso hadlina kari maayan hadhowta waayahay runtii dee iyadoo shirkadaha somaliland baaxad u yihiin oo waraysi intan ka dheer ay u baahan yihiin haddana mustafa waxaan jeclahay inaan su-aasha ugu dambaysan ku weydiinaya ay noqoto shirkaduhu ama shirkadda telesom iyo shirkadaha kaleba waxay ka samaystaan dhul miyiya garana dheer bay ka taagaan dad baa dhulkaa degan marka dadka maxaa ku waajiba shirkadaas ama telesom ha noqoto ama shirkadaha kale inay u qabtaan dadkana dhulkooda isticmaalayaan ama reer guuraha ama reer miyiga waa su-aal wanaagsan oo waxyaabihii aan berigii kusoo arkay waddanka waxaa ka mid a meel new hargeysa ka mid aan tago ninka shirkadda leh ee telesom uu geel ku dhaqdo oo geel caano wanaagsan laga liso marka aniga cabdisilaan here baa tago caano fiican baan horta maasha allah ka soo cabnay marka waxa weeyaan buurahaasna waxa weye waa ilaahay baa abuuray waa dabiici ummaddaa wada leh shirkadna ma yeelan karto qof gaarana ma yeelan karo marka anigu aad iyo aad baan uga xumaaday waayo arrimaha deegaanka iyo arrimaha bulshada waxa naga saaran aniga qaar ahaan mas-uuliyad gaar iyo xilkasnimaa naga saaran in la ilaaliyo ilaalinta deegaanka waa waajib buuraha marka inay xidhaan anigu aad iyo aad baan uga xumaaday waxaan kaloo ka xumaaday shirkadda telesom haddaad tagto ilaa haleeya ilaa haddaad tagto meesha la yidhaahdo haleeya iyo dhulkaasoo dhan oo barkadle buuro waaweyn bay saartay buurahaas waa hantidii ummadda weeye markay ka macaashtay waxa loo baahnay dadkii tuulooyinka dhubatoo kale dadkii tuulooyinka joogay inay xaggii iskuullada ka caawiso xaggii magaranaysa waxbarashada iyo caafimaad ka caawiso waxa weeyaan waddankan oo kale community reinvestment act waxa la yidhaha jira meel kastood ka macaasho waa inaad gelisa 15% marka waxyaabahaasna may samayn caafimaad iyo adeegii bulshada kamay samayn waxbarasho kama suurtagelin xaggii ilaha biyaha marka waxyaabahaasoo dhan waxyaaba qalada oo kambaniga nacsiinaya ummadda marka telesom waa inaanay dadka un ka macaashin waa inay lacagta dib ugu celiso deegaan kasta oo ay taalo ka samaysatay oo ilaaliso arrimaha deegaanka iyo bilicda hargeysa iyo buuraheenna oo aanay dhalin rag ku samayn waxyaabahaasoo dhan waxyaabahan kala hadli doono mustaqbalka nimankan meeshan leh laakiin arrintii abaaraha oo kale waddanka ka dhacday iyo dhibaatooyin badan oo waddanka soo maray telesom soo kumay qayb qaadan soo malaayiin dollar kumay bixinin oo dadka lacagta lama gelinaynin soo lama odhan karo waxyaabo fara badan oo ay ka qayb qaateen ayaa jira marka la eego iyadoo dhaliilana ay jiraan iyo dhul aanay waxba ka qaban haddana horumarka dadka wax badan ma ka qayb qaateen soo lama odhan karo aan kuu sheego tijaarta somaliland berigii abaaruhu dhaceen 2018 wax laala waxay ballan qaadeen waxna dowladda qaadatay oo waa la masuqnaasaqay waxna afkay ka yidhaahdaan oo way maaraan hargeysa anigu waxaan ka soo arkay nimanka taajiriinta oo dadkii reer guraaga ahaa islahaa neefka iibiya maalintii saylada keenaan ka jebiya qiimaha dabeedna waxay sameeyaan geela iyagu leeyin bay saylada kusoo daayaan si markii dadka reer guraaga ay islaadaan neefkiiba iyo arkaan waxaan oo geela oo qiimaha laga baqso horta dadka aad leedahay waxbay bixiyaan waxbay ummadda taran waa dadka ninka reer miyiga neefka wata neefkiisii qiimaha ka baqsaya waxa dhacay xilligii abaaraha ganacsatada reer somaliland waxay xaraashatay hantidii reer guraaga ahaa xoolihii noolaa hadday noqoto geel iyo hadday noqoto ari marka waxa weyn horta ganacsatada reer somaliland dad waddanka wax tara maaha waa dad dhaawaca weeye ummadda soomaaliyeed waxyaabahan la yaabsanay waxaa ka mid ah iminka haddaad eegto shirkaddan coca-colaha samaysay geela arab anigu brograamaanu ka shaqeynay oo chilean biyaha ka iibsan jiray xuquuqda biyaha iminka wuxuu ku haystaa deegaanka ugu weynaa aw barkhadle wuxuu ku haystaa kambani weyn kambanigaasi waa okay wuxuu soo saaray dad buu shaqaalaysiyey at least waxbuu kusoo kordhiyey deegaanka somaliland laakiin dad dhan oo deegaankaa degan oo aw barkhadle la oran jiray biyahoodii qabsaday waddanka adduunkan xeerar buu leeyahay wuxuu yidhahdo repatriation rights of water ayaa jira
dadka biyihiisa inaad ka qabsan haddaad laakiin qabsato waa inaad deegaanadii dadkaasi ku noolaayeen aad geliso biyo aad geliso magaranaysa waxbarasho maanta hargeysa aw barkhadle booyadaha dhaamiya booyadahaasi bere dhow dhaamin kari maayan wixii oo dhanba waxaa loo bedelay coca-cola iyo fanta marka ninkan geella arab oo kale waxay deegaanku ka soo jeeday ee gaar ahaan deegaankan garxadsku degan yahay uu biyaha ka dhuranayo inuu iskuuladii iyo caafimaadkii daba dhigo dhinacan arabku degan yahay iyaduna aad imika ugu baahan magaranaysa tabaruca iyo dhaqaalaha inuu community reinvestment act CRR geliyo marka telesom iyo dahabshiil iyo geella arab waxay ka mid yihiin ummadda inay ka qaadaan macaashkii aanay dib u gelin waxaan anagu halkan farayna waxa weeye difaaca dhaqanka difaaca dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed iyo difaaca magaranaysa danta guud iyo macaashkii ay heleen inay ummadda dib u geliyeen oo aanay ku yaboohin sidii beenta ahayd ee laakiin la arko waxay qabteen tusaalaan ku siinaya ceel qura kama qodin geella arab aw barkhadle ceelku imsuu qaataa $5,000 buu qaataa maalina shil ma gelin sanadkii intuu macaashan anigu waan hayaa riboortadii ugu dambeeyay u soo diray shirkadaha Djibouti marka waxa weeyaan Telesom waa la mid dahabshiil waa la mid dadka waa inay geliyaan dhaqaalaha ka macaasheen haddii kale ummadda ganacsigeeda haysan kari maayo waayahay mudane Mustafa Martin kulliba shirkadahaas iyaguna xaq bay u leeyihiin inay sheegaan wixii ay ummadda u qabteen oo kulligooda dhageysan doonaan iyaguna ay istifaacaan waayo iminka dhinac qura adiga ayaa dhaliilaha soo jeediyay laakiin waa laga yaabaa iyaguba inay wax badan ay sheegtaan oo ay dadku u qabteen iyagana waxaan leenahay way ku soo runtii arrintan waa arrin waxtar weyn iyaga u leh markay fahmaan in macaashka ummadda ay la qaybsadaan kambaniga sumcadiisii iyo sharaftiisii iyo ixtiraamkiisii ayuu koraya ninka Soomaaliland maanta jooga danyarti ma hadli karo ninka reeraheeni maanta ma hadli karo siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan buu cabursay marka anigu waxaan noqday codka ummadda u hadlaya laakiin iyagana wax taraya mustaqbalka ummadana wax taraya waayahay mudane Mustafa Martin waraysiga wali soo gabagabeyn doonaa kulay waraysiyo kale fara badan oo dhaqaalaha ku saabsan iyo shirkadaha Somaliland oo ka hadli doonaa mustaqbalka soo socda mudane Mustafa aad iyo aad u mahadsantahay thank you very much waayahay daawadayaal inta waxaan ugu dhamaaday waraysigii aan la yeelanay mudane Mustafa Martin oo aqoonyahan Soomaaliyeed ku nool waddanka Mareykanka sida aan horey ku soo sheegay isla markaana Mustafa khabiir ka soo shaqeeyay bangiga weyn ee lagu magacaabo Citibank isla markaana financial marketingka ku takhasusay waraysiga waxa Mustafa la yeeshay anigoo Barkad Cabdullaahi Maxamed oo ku sugan studio hayaga waddanka Sweden daawadayaal inta dib u kulmay dhamaantiin waxaan leenahay nabadgelyo